xarunta guddiga Olombikada Soomaaliyeed waxaa maanta lagu sameeyay isku aadka horyaalka tenniska kaasoo ay ka qayb qaadanayaan ilaa iyo 6 koox. Isku aadka waxaa ka soo baxay kulamo adag iyadoo ay ciyaarayaan 10 xidig oo waliba u dheelaya qaab single ama keli ah. goobta qoryotuurka lagu sameeyay waxaa ku sugnaa gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska, xogayaha xiriirkaas, qaar ka mid ah gudoomiyaasha kooxaha ka qayb galaya tartankan, macallimiin, ciyaartooy iyo marti sharaf kale. ugu horeen waxaa goobta ka hadlay Xamse Xaaji Cabdi oo ah xogayaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska, isagoo ka warbixiyay horyaalkan iyo kooxaha ka qayb qaadanaya. maanta waxaan rabnaa mudan gudoomiye maanta waxa ku hor fadhiyo waa ciyaaryahanadii ciyaar lahaay iyo madaxdii kooxaha oo ka soo qayb galay in ay ka qayb qaataan barnaamijkan qortuurka ah ayadoo dhawaan uu noo bilaaban doono horyaalkii tenniska. waxaan insha Allah isla qaadanay inaan bilaabno taariikhda 11 bisha ku aadan maalinta Jimcaha hadii Ilaahay idmo. maantana aan u fadhino qortuurkiisa mudan gudoomiye horyaalkan waxa loo ciyaari doonaa horyaalada kale uga duwan yahay single ayuu noqon doonaa oo kali ciyaarta ah. waxaan ka qayb qaadan doono ilaa 6 kooxood, laba group u kala saaran yihiin group A iyo group B. ciyaartooydana waxay u kala qaybsan yihiin ciyaartooy ahaan ka qayb galayso 11 ciyaartooy. 11kaas ayaa laba group kala noqon doona, groupna 6 noqon doona, groupna 5 noqon doona. kabacdi semi finaale ilaa finaalaha. mudan gudoomiye waxaa maanta sharaf noo ah inaan maanta aan ku horkeeno ciyaartooydii tenniska iyo madaxda xiriirka tenniska kooxaha ayna ka qayb qaadan doonaan in maarta qortuurka indhahooda ku arkaan iyo sidii iskugu aadi lahaayeen. barnaamijkaas asagana xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska wuxuu u diyaariyay in sanadkan maartay ay sanadkii shanaad ee sponsor ka tahay. Saacad Cumar Geedi, gudoomiyaha xiriirka tenniska, ayaa ugu baaqay in ciyaartooyda iyo kooxaha ay la yimaadaan akhlaaq iyo ciyaar wanaagsan maadaama horyaalkan uu ka duwan yahay kuwii hore. sanadkan waa ka duwanay sida sanadka hore ciyaar jirnay, waa ka duwanay markaa isku laba jirnay, laakiin hadda waxa waaye si kastaba gooni u ciyaaraa. single-ka waa dhamaana, qofkii qaatay, naadiga qaatay, welcome. haddana dawalkii naadiga qaatay, welcome. waxaa kaloo jiro hadday isku yimaadaan hal naadi oo hal koox isla yimaadaan waxay u tartamayaan waxa waaye shakhsi ahaan inay ogaadaan haddii ay dhacdo hal naadi oo laba ciyaartooy ka soo baxdo. aniga waxaan u xisaabinaynaa, aniga ciyaartooydaan xisaabinaynaa, ninkii ka soo baxay qofkii raynaya aan rabnaa. naadiga haddii barmi sugunta oo helaa, laakiin aniga waxaan rabnaa yaa qaatay koobkaasito shakhsi ahaan waxa qaatay hebelaa qaatay. inkastoo labada isla yihiin hal koox isla yihiin, haddana labadii qofood ciyaartooy ahayd saas u qaatay. aad u mahadsantihiin. waxaan rajaynaynaa in tartankan uu si fiican ku dhamaado. wixii dishibliin wixii nidaam ahay waan la socodsiinaynaa. waxaan jecelnahay dhammaan gudoomiyaasha inay tartanka ciyaartooyda kooxda dheelayso inay naga soo qayb gashaan. kulanka furitaanka waxaa loo qorsheeyay inay ciyaaraan kooxaha Hegan iyo Ilhaysa iyadoo maalinta Jimcaha ku dagaalami doona garoonka fuusalka degmada Shibis ee gobolka Banaadir. caadiyan waxaa horyaalkan ka qayb qaadan doona ilaa iyo 6 koox oo kala ah Dolphin, Gift Star, Hegan, Ladan, Ilays iyo Dekada.